taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Dayax Cabdi Cabdulle iyo saraakiil kale oo ay wehelinayeen ayaa socdaal waxa ay ku gaareen deegaano markaasi ka tirsan gobolka Galgaduud halkaas oo kamid ah deegaano dhawaan lagala wareegay al-shabaab iyadoo deegaanadaasi magacyadooda lagu sheegay Wiinaale iyo sidoo kale Dhagaxyaale oo hoostaga degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. taliyaha iyo saraakiisha uu hogaaminayay ayaa waxa ay halkaas ugu tageen sidii ay u dardargelinayeen howlgallada halkaasi ka socda iyo dhiirigelinta ciidanka. deegaanada uu taliyuhu tagay ayaa waxaa kamid ahayd deegaanadaasi labada gaaraya oo dhawaan lagala wareegay al-shabaab. saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in deegaanka Waniile al-shabaab looga dilay ilaa 50 xubnood waxaana deegaankan oo dhawaan gacanta lagu dhigay gaari saraakiishaasi ka tirsanaa ciidamada dawladda oo halkaasi u tagay sidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u garab istaagi lahaayeen. generaalkan ciidanka dhulka iyo saraakiisha uu hogaaminayay ayaa waxa ay sheegeen in ay booqan doonaan deegaanada kale ee dhawaan al-shabaab lagala wareegay waxaana ay tilmaameen in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab. dagaal isniintii ka dhacay deegaanka Waniile ayaa waxaa la sheegay in ay kula wareegeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana ay khasaare ku gaarsiiyeen al-shabaab sida ay hadalka u dhigteen.